Asalaamu calaykum waraxmatullah halkaa daawanaysaan waa Adduun Media kusoo dhawaada qodobadeena ugu doorka roon warkeena maanta. Cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu soo dhaweeyay maalinkii shalay ahaa magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xiisada ka soo gudboonaatay deegaanadaas Koonfur Galbeed oo ay ka mid ahayd dadkii shacabka ah ee ku taageeray booradaha watay ee ku taageerayay joogista ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya qaar ay lahaayeen Egypt ma rabno qaarna ay lahaayeen Itoobiya soo dhawow halka xildhibaanada Koonfur Galbeed ay si caadi oo cod ah ay u taageereen joogista ciidamada Itoobiya ee ADMIS iyo kuwooda sharci darrada ku jooga ee joogistooda waddanka Soomaaliya. waxaad kaloo ku maqli doontaan wararkeena sargaal ka tirsan ciidamada Itoobiya oo hanjabaad cad u diray dhankaas iyo Masar sheegayna haddii ciidamada Masar ka soo degaan waddanka Soomaaliya xamar in ay dagaal toos ah oo faraha la isku tagi doono ay la geli doonaan aysan ahayn munaasab ciidamada Masar inay ka qayb noqdaan ama ay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga waddanka Soomaaliya ee ADMIS markaasna aysan macquul ahayn waddan cadawgooda in ay markaas iskula jiraan ADMIS. halka dhanka kale ee madaxweynaha maamulka Somaliland ee Muuse Bixi mar uu ka hadlayay ololihiisa campaign ee doorashada ayaa sheegay in uu diyaar u yahay fulintii heshiiskii January bishii koowaad ee Addis Ababa kula galeen ee xagga ku saabsaneed bad siinta Itoobiya ee uu kula galay Abiy Ahmed inuu markan diyaar u yahay in uu fuliyo heshiiskii diyaarna u yahay una sheegay shacabkiisa in ay tahay Itoobiya in aysan jirin wax bad oo ay siiyeen laakiin ay tahay kiro oo ay tahay markaas ganacsi kala dhexeyn doona iyo horumar oo markaas uu sheegay in uu Somaliland u horseedi doono. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaan falqeyn doonaa mid baan u falqeyn doonaa oo kor istaagi doonaa qodobada maanta. hadday tahay markii uu horeysay channelka subscribe saar like saar sina share gareey oo fiidiyoona meel fog gaarsiin. haddii aad ka soo horjeedid ciidamada Itoobiya iyo damaca gurraxan ee ku hayso waddankeena Soomaaliya haddii aad ka soo horjeedo oo dhig Soomaaliyeed kugu jiro fiidiyoona meel gaarsiiya waayahay. Cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo arrimo shaqo u maqnaa dibadda uga maqnaa ayaa shalay wuxuu ka soo degay magaalada Baydhabo. dabcan horta Cabdicasiis lafta gareen waxaa lagu tuhun maaha markan si toos ah ayuu u cadyahay warkiisna uu cadeystay waxa uu si toos ah u istaagayaa Addis Ababa wuxuuna u shaqeynayaa Itoobiya waana nin danaha Itoobiya mar walba u taagan waxayna taas ku cadeynaysaa markii uu ka soo degay magaalada Baydhabo wax soo dhaweeyay waxay hayeen ciidamada Itoobiya ay ka soo qaaday ilaa iyo xafiiskiisa ilaa iyo markuu hadlayay wixii ilaalinaya ciidamada Itoobiya ahaayeen marka ninkan waxay u muuqataa inuu maqaar saar yahay laakiin u shaqeynayo Ethiopian haddii hore u aragteen dad shacab oo boorado wata oo dhahay qaar xitaa dadkaas waxa ku jira odayaal waaweyn oo xataa aan garanayn boorada wax ugu qoran waxa loogu qoray iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo wax cid aan xataa war xasba warkayn oo tahay wax warqad loogu dhiibay oo maartay meel isku keenay dadku xataa ilmo yar oo dhalinyaro oo qaarkood meelaha ku ciyaalka xaafadda Burundi waxay baadil isku soo ururiyay waxa la yiraahday Itoobiya waa shacab taageeraya waa sidan oo waxaasoo dhan waxa ka dambeeya waa ciidamada Itoobiya ee ku dhex jira deegaanadan Koonfur Galbeed ee waddanka Soomaaliya waxaan u horseedayna waa Cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkiisa waa arada waxa ka shabay meeshaas ku noqdeen haddii aragtay arig marba dhinac u fiigayo marba dhinac ka ordaya waxa weeye arigada waxa ku jirta marka goboladan iyo deegaanadan Itoobiyan ba ku jira wax qasaya dhibaatadaas dhankeena waa Itoobiyan waxa ku cadeynaysa xataa xildhibaanadii ka hadlayay ee dhahay ciidamada Itoobiya inay joogaan oo waddanka sii joogaan waa sax ciidamada Masar waxay keenayaan fidno ciidamada Masar maxay fidno keenayaan fidnada iyo dhibka waxa wada waa ciidamada Itoobiya dawladda Soomaaliya haday go'aan gaartay go'aankeeda ayada iska leh dabcan haddii ay cid ay keensanayso iyo cid heshiis la galto kulba wuxuu taalaa dawladda federaalka Koonfur Galbeed waa maamul hoostaga xamar waxayna ku qasbayeen amarka xamar inay qaataan iyo maartay madaxweynahooda iyo dawladooda laakiin in ay ka soo horjeestaan waxa keenaysa waxa ka dambeeya waxay tahay ciidamada Itoobiya ee waddankaas jooga gabi ahaan maalinka maanta waxaan leeyahay ciidamada Itoobiya waqtigoodii bal ka hor in ay baxaan waddankaas ka baxaan waxa lagu leeyahay ciidamo ADMIS ka tirsan oo Itoobiyaan inta ADMIS u registreysan waxa lagu qiyaasaa 2000 ilaa 3000 laakiin waddanka waxa jooga ilaa iyo 8000 ilaa 7000 oo ciidamo Itoobiyaan oo maalin ka dambaysa qaarna imaaneen qaarna si socdaan isa isku bedelaya waxaad moodaaba gobol ka tirsan inay tahay Itoobiya Soomaaliya inay tahay gobol ka tirsan Itoobiya waxa sida u dhaqmanayaan xataa gobolka Gedaa fiirsid eeraboradooda maalin ilaa shalay waxa ciidamo iyo diyaarado ka soo degay waa Itoobiyaan إلا هلا سعيد فسح كقادريان أنت وصعتان ويدينسا وحس مله وحد مداوينا ودنك ستوس أي معمولانيان وحنا كنا دعسن ودن كان وبقيب كترسن توبيا ساس وحسنا وحور سيدي وعن ومقار صاردا سياسيين تا قاركو قولada ay madaxweynayaashka yihiin sida Cabdicasiis lafta garaan oo kale
intuu maalin cad soo istaagay ayuu wuxuu ku leeyahay xildhibaanada Soomaaliya ee Muqdisho u jawaabay xildhibaanada Koonfur Galbeed ee ka hadlayay mowqifkooda aragtidooda ku lahaa waxay tahay waa qalad waxayna horseedaysaa kala tag iyo kala guur ayay soo horseedaysaa iyo midnimo in ay si kala burburiyaan buu leeyahay waxay tahay midnimada la burburiyo midnimo iyo burburi ka sokaysa ma jirta asaga ninkaasi waa si farba ku gudan gabi ahaantiisa waa farba ku gudan waa tahay mar shalay ahayd oo xaflad ay qabsanayeen markaas ku maamusayeen iyo hawl qarnimo waxay ku sheegeen meel Abiy Ahmed ka hadlay ayaa waxa ka hadlay generaal ka tirsan ciidamada Itoobiya wuxuu sheegay markaas in ay Masar ay ka joogsato ka qayb noqoshada ciidamada ADMIS ee nabad ilaalinta u jooga wadanka Soomaaliya haddii ay markaas ay ka mid noqdaan ay ka soo degaan magaalada Xamar ay tahay in xabad toos ay ula tagi doonaan ay markaan dagaal cad ay ku qaadi karaan waxaan waa walaahow iyo baraq oromadan wax badan wuxuu sheegay rabaan wax badan ma oga adduunka waxaad moodaa oromadu inay gadaal ku jirtaan moodaa adduunka meesha dadku ay banaanka joogaan inay hoog jiraan bad moodaa sida u fikirayaan aqal xumadooda waad yaabasa war ma oga miya wadanka Soomaaliya in ay madax banaan tahay oo maaragtay cid ay rabtana ka sanayso cid ay rabtana iska bixinayso waxa kaliya ku filan in la dhaho idinka iska baxa wadankan la idinka ma ogola haddii intaas la dhaho oo dawladda federaalka ay dhahaan dagaal toos ah la geli karaa oo waxa weey toos xabad baa looga bixinayaa marka inay markaas kugu jeesjeesaan oo soo hadlaan waxa ugu wacan waa siyaasiyiintan Soomaaliyeed gabi ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyartana maanta waxa ugu baaqaya in ay midoobaan gabi ahaan ay xabad kala hortagaan meel Allah meesha Ethiopian ku aragtaan ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado war waa dameer dhigiisa isma dhaamat waa dad badan oo harkaysa tuugsadayaal qaar meesha shaqo u joogna kulli waxaas wax ka jiraan wax ilaa abuurto ka jiraan waa wada sirdoon mission bay wadaan waxa weey meesha ku aragtaan fiijiya wadankan ayaan loo ogolaan saas Ethiopian uga reey kartaan hadda ninkaas wuxuu ku leeyahay wuxuu amar siinayaaba dawladda Soomaaliya iyo Masar in aysan meesha imaanin waaba amar toos ah waa hanjabaadna ma wala dhigi karo waaba amar toos ah marka waxa u muuqataa dadkan inay kala war la yihiin Ethiopia dhankeeda gudaha Ethiopia hadda waxa ka socda dagaalo culus kuwa ciidamada Faano ayaa maaragtay ayagana markaan guulo waaweyn gaartay xalayna waa idin soo tabiyay kolba Addis Ababa waxay ku garaaceen gantaalada kuwa ridada dheer kuwaas oo markii hore loo tuhmay in ay ka qabsadeen ciidamada Ethiopia waxa la arkay xataa ciidamada Ethiopia oo gacmaha kor taagayo oo dhulka oo qoryaha dhulka dhigaya xataa gaariyooshoodii iyo taangiyadoodii ka carareen qaarkood la sheegay in Suudaan galeen xad ka talaabeen markaasna Faano waxay xaqiijisay xadka u dhaxeeyay Ethiopia iyo dhulkooda gobolkooda Amxaarada xadka ay la wadaagayeen dhankaas Suudaan in ay gabi ahaanba la wareegtay toos oo la wareegtay taas ku halis weyn ku ah ciidamada Ethiopia Amxaarada hadda maanta waxay awoodaa in halkaas ay hub loogu soo dejiyo ciidamada Suudaan iyo ciidamada Masar ay halkaas soo mari karaan because xuduudkii dhamma ayay gacanta ku qabteen oo meelo fiican oo istiraatiiji ah gacanta ku haystaan walaahi Abiy Ahmed horta waa loo baqaa waxa bal arkaya Abiy Ahmed in ay tahay in ay gacanta ku burburi doonto wadanka Ethiopia la sheegay inay isaga gacanta ku burburi doonto ayay u cadahay laakiin kama hor dhici doono waqtigeeda ayaan sugi doonaa warkeena maanta aad ka daawanaysan Adduun Media intaas nagu yahay wararka kalena waa soo tabinaynaa wixii update-deena halkan aad nagala socon doontaan channelka waxa weeye subscribe saar like na saar video-gana meel gaarsiya wana mahadsantiin